ugu dambeyn divisionka warkiisa wuu dhamaaday oo gabi ahaan gameka football waa laga daleedi doonaa divisionka oo waxa la keeni doonaa booskiisa tartan cusub tartankaas oo lagu magacaabo Master League hadaba muxuu yahay Master League sidee loo ciyaari doonaa Master League muuqaalkeena maanta ayaan ku sharxi doonaa marka hore muuqaalka loo saar page-kana follow soo una share garee saaxiibada gameka football kula ciyaarto hadii aad inta sameysay hadaba inoo bilow muuqaalkeena maanta Master League waa tartan cusub kaasoo shirkadda Konami ay ugu talgashay inay ku bedelaan booska divisionka hadaba Master League ma bedeli doona booska divisionka waxaad sameysan doontaa koox adiga ku gaar ah kooxdaas oo aad adiga tababar aad u noqon doonto sidoo kale waxaad awood u lahaan doontaa in baleeyradaada aad ka bedesho meelaha qaar sida inaad u hagaajiso timaha iyo waxyaalo kale oo ku xiiso geliya kuwaasoo shirkadda eFootball ay ku soo dartay Master League ugu dambeyn shirkadda Konami waxay shaacisay in Master League ay keeni doonto 2 isbuuc kadib adiga aan su'aal ku weydiiyay ma ku faraxsantaa in divisionka gabi ahaan gameka eFootball laga tirtiray hadii jawaabtaada ay tahay commenti ku soo qor haday ma tahay muuqaalka loo saar page follow soo una share garee saaxiibada kale gameka football kula ciyaaraan